kulanti wanaagsan dhagaystayaal iyo daawadayaal dhammaantiinba waxaad nagala socotaan channelka YouTube-ka Jaadir Dalmar oo aan idinkala socodsiin doono warar muhiim ah oo ku soo kordhay colaadii iyo dagaalkii dhawaanahanba ka calosnaa deegaanka loo yaqaano Tukaraq halkaasi oo ay isku hayaan ciidamada Somaliland oo iyagu 8 January qabsaday halka iyo kuwa Puntland oo doonaya in ay iyagu dib uga xoreeyaan si ay u soo ceshadaan customkii iyo controlkii hore ee halka ay ku lahaayeen. Haddaba waxaa soo taraya warar sheegaya in ay ciidamada Puntland halkaasi geeyeen taangiyo iyo dabaabaad aad u tiro badan iyadoo awal hore ay halka u sii joogeen ciidamo kale oo isla Puntland taabacsan oo ay soo fadhiyeen ciidamada militariga ama xooga dalka Somaliland. Haddaba su'aasha meesha taal ayaa waxay tahay ciidamada Puntland ee ka tagay Garowe iyo magaalooyinka kale ee Boosaaso iyo Qardho oo iyagu ku duulaya in ay hayb wadaagaan dadka ku nool deegaanada Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyo maamulka Somaliland oo isagu raba ama ku andacoonaya in uu soo xirayo xuduudiisii iyagoo markaa leh Sool iyo Sanaag iyo Cayn waa dhul ka tirsan ama deegaan ka tirsan jamhuuriyadda la magac baxday Somaliland ee aan wali caalamku aqoonsan. Haddaba isjiijiidka iyo dagaalka meesha ka curan kara maxuu dhaxal u reebi karaa ayaa la is oran karaa dadka ku nool Sool iyo Sanaag iyo Cayn. Askariga ka tagay Garowe waa Goblow oo macnaha la oran karo ilaa 70 kilomitir ayuu ka boqolay midka 500 oo kilomitir ama ilaa 600 oo kilomitir ka shakiyay sidoo kale meesha ayuu ku sugan yahay. Marka meesha la isku dagaalo oo ay ka dhacdo laba arag iyo laba maqal oo lagu riiqdo cidda ubadkeeda iyo oorideedu ay ku ba'ayso waa dadka dega ama sheegta in ay iyagu leeyihiin Sool iyo Sanaag iyo Cayn. Haddaba daawade